wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuqu uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo waa 12 bisha 3 sanada 2015 dhageystayaal barnaamijkan gaarka aynu kaga hadalno aalaba dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay waxaynu inta badan ku cusubnaa marti waxaana nagala qayb gala dadka mudan hadii ay halhaayeen professor aqoon-yahano iyo waliba sidoo kale xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka haddaba marka hore waxaan jeclaan lahaa barnaamijkan oo ay gacan ka geysanayso hay'adda marqaati isla markaana tabinteedu ay leedahay idaacadda banaadir ee magaalada Muqdisho dhageystayaasha qaybaha dambe qaadka telefoonada dooda ay ka qayb qaadanayaan fikirkooda dhibaatada musuq maasuqa in sida caadada u aad barnaamijka aan guunfur uga dhigno mid kamid ah sheekooyinka aynu ugu talagalnay inay ifiyaan dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay qaybtan waxay ka hadli doontaa xirnaanshaha wadooyinka iyo qaabka lagu cadaalad faro marka wadada ay xiran tahay bulshada maraysa wadada musuq maasuq yahay siyaad uga marsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal waamulo bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco جدكان وحريان وإنه حريان جدكان ما أنت والا صعدتها مقالة
howlgalka meel kasta ka socda wada kastoo xiran waa ogtahay madaxdii aa dhoofaysa dhinaca kale meelo magaalada ka mid ah waxaa waaye amni xaqiijinaa laga wadaa baaritaana ka socda saraakiisha amniga oo dhinaca magaalada wada yaacaysa wadadan aan aniga adiga taaganahay waa close wadadu waa xirantahay wadada xirantay jijilaac yaa laga wax soo mari karaa male wax maraya male jidkaan xiran yahay jabgeerta ka laabo wadada ay ana jaamacada socda ka laabo jaamacada waa ku bariyaa wax ma wataan abu maanta jaamacad male waa noqon jaamacadu waa fanta adeer waa laaba kartaa ya tag adiga adeer waa halkaan rabaa ma gadaal laabo a'uudu billah war waa kaligay adeer gadaal laabo fartiga noqo dib laabo adiga labo change gariga war bal ii kaadi maxaad ay gabadhay satag ilaa maxay wadada xiranta wadada maxaa xiray wadadu way xiran tahay wadada kale ka soo wareeg oo kuwan maraayana kuwe oo kuwa tuutaa gaariga wata iyo tigidhkada way maraysaa maxaa waa ciidan askari askari alors tuuriyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay waabayaa bahdiiba aad tuutaa askari ataliye ninkan waa dareemis waa labisan yahay ninkan waa nin ciidan waaye kuma fududaan karno ogtaa inuu generaal yahay laga yaabaa inuu si kale nin qarsan yahay laga yaabaa ha tuuto ninkan gudub haya magaalo hola ka socota adeer okay maanta magaalo hawlgal baa ka socota dhibaa waa arag yaa haya waa maasantahay soo gudub gabar joog inta qoraxda ay ugu celinaysan meeqa gaariya sii deynaysiin ama saxeeta waxaan sababta lagu celinaa maxay baabuurta waa baabuurta dawladda waa ciidankii waa dalka ciidankoodii wadanka shacabka waxba kuma lahan miya shacabku wuu ka leeyahay wadanka laakiin waa xilligaa wadadu way xiran tahay waxa ciidan hay ma mari karaan okay way marka waxaan ku qasbanaa maalinta wadada xirtina dhar tuuta soo xiran soo ma aan ku gudubna caruurtina guriga ku jiraan iskuul way noo aadi waayeen jaamacadu way aadi waayeen dadkii tuutaa watan waa la gudbinaya anagina macnaa shacabka waxba ma eedo wadadu way xiran tahay anigu waxaan idhiilaa cadaaladda loo sinaado nina sii daysin nina macnihii ku celisiin qoraxda wax xaqa ma aha waniga gabadhan gaadiidkan kale naga musuq maasuqna ma doonayno askartaas ma soo deey cadaaladda waa mid soo deey midna garabka saaran midna waa dhegeyso qofkan soo deey taliya dhegeyso ciidan kasto taas soo daa ma taliya dhegeyso ina midna sii deyno macnaha midna aan celin taliya askar maya digtoono taliya maya taliya waxa uu rabaa no saraakiisha xilligaan kale saraakiisha xataa wala celiya wax wadada maraya ma jiro qofna inaan sii deyno taliya qofna aan celino taliya ma shaqaynayso odaygaas aruntiis xaqu ay tiriwaantahay kantaaba ay tiriwaantahay maya ma shaqaynayso cid aan kala celin baasha ma wanaagsana taliya gaarigan ciidan baa saaran waa gaari taliya ma sii deynayo gaari aan deynayo ma jiro waa xarantaa sabab maxay waa kulligooda deynaya waan ku qanacsan cadaaladda sida aniga waxaan qabaa dadka in aan sii wada deyno iyo inaan celina taliya war gaadiidkan dadka watan wax saaran ma ognahay gaadiidka dadku ay wataan walaalow inta magaaladan ari maqal inta magaaladan shaqadu ay ka socoto ilaa tale laga soo hadlo gacanada aan wadano wadooyinka hala furo taliyaasha naga sareeyana soo wacaan wadadan way xirnaanaysaa gaadiid ciidan saaran yahay wax kale ma deyneen walaalow nimanka ma soo waceen wadada fur leema dhig walaalow tuutayaasha waa la wada xirtaa taliye cid kasta xirata taliye war gaarigan hadda aad celinayso niyo askar baa saaran adig maanta waxaad ka tarabtaa meesha in balay ay ka dhacdo askartan dawladdu waaye hubay wataan haday xanaaqaan rasaas ay fuani adiga magacmaha laabanayna anigu gaarigan hadda celiya gaarigan waa sii deynaya sax waaye waa runtiis cadaaladdu waa mid gaarigaas hadda waa gudbi gudbi kara wuxuu dhihi karaa taliya hebel ciidankiis meeshaas nagu celi anagana xoogan kusoo marnay dad nin xun waa sii deynaya yalay gudub adigana waa mahadsan tahay waxaan ku taliyayga in wax rabo inuu ga dhadacsiyo war fiiri shalay daraan albaab markuu xirnaa
guriga aniga ila deg aan deganaa wiilka deganaa tuuta kayga inta soo gasto ku soo maray wadada markii leeyahay way xiran tahay nin kastoo tuuta watana wuxuu leeyahay waxa waaye ninka tuuta wata askari waay macnaha tuuta waa la wada gashay yahay marka waxay sax tahay wadadu hadday xiran tahay cid walbay ka xiran tahay madaxda xilligaas ay u xiran tahay mooye cid kasta oo Soomaaliya way ka xiran tahay wadada askarigan inaan bedelo waayo sababtoo ah wadadii maanta la xil saaray inuu ugu ceebeeyo raba meeqa qof gaadiidkii shacabka oo gudbi kula waxaas inta warninkan inaan taliska guud dacwad u qoor riboodkiisa aan gudbin ninkan total islama shaqeyn karna gabi ahaan baan dhahay sababtoo ah wadadii amnigeeda xaqiiqo la dhahay dadkii wada fasaxay inta magaalada hadda gashay oo madaxda dhoofeysay gaadiid uu ka dabageeyo magaalada hadda qalqal gasho hadda wadadii taliyeed taagna laga soo dayaal leeyahay waxaas wax anfacaya ma ahan warniyood oo aan mid ku sheego aan hor taliyahaagaan ahay maanta meeshan waxa aad ka sameysay waa wax aad qatar ku mutaysan karto taliyahayga ma waxa ku tahay inaa amar qaldan isiiso aniga haddii aan ku amro amarkii aan ku sii inaad qaadato waay taliya aniga waxa la soo baran ku sheegaya haddii adiga laga ilo taliyahaaga inaad ku afcin shaqada maya maqal aniga waxa la baran ku sheegaya haddaan taliya adiga lagu barin haddii adiga aadan askarinimada dib u soo marin oo aad garaadaha la iska kaasiyay aniga waxa la baray dable shaqadiisi ku guda jira wuxuu ka amar sareeyaa general xilligaas wadada aniga aan hayo aniga adiga madaxa taliya ii tahay mooye hawsha aniga ka mas'uula ina cidna celiyo cidna aan sii daayo taliye macnaha aniga taliyahayga kuma teed wadadu way xiran tahay cid kastay ka xiran tahay gaadiidka dawladda xitaa ma ka xirina way ka xiran tahay maxaa loo xiray jid fiiri wada maxaa loo xiray wadadu ciidanku meel kastuu joogaa wadanka dhan waa wada ciidan hay-aduhu meel kastay joogaan amnigu meel kastuu joogaa wasaaruhu meel kastay ka shaqeeyaan wadada waxaa loo xiray maxay tahay waa xaqiijin amni soomaa dhagaysta taliye wadada waxaa loo xiray amniga xaqiijintiisa ama waxaa loo xiray madaxdii oo dhoofaysa taliye wadada bataanta way xiran tahay hoo farsoo taaganaa noqotay maya warkaaga waa batay ciidanka magaalada la geeyay askari kasta taliyihiisu ka amar qaata ma shaqeynayo adiga war maanta dhan waad dhegeysanayo madax adeegiskada uu ka saxay askariga intan taliyihiisa ahay taliyihiisa ah uu ka saxay yahay wadada uu ku faray waa inaa raacdi wadadan qafna kama xirno qafna uma furno wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal gabadhi adigu maxaad ahayd adigu ciidan tahay ciidan mihi haye laakiin anigu waxaan raadiyaa xaqa haye fahmaysaa wuu kaa saxan yahay askarigan macnii adiga darajada inaa ku macnii madax kaga istaagtid ma wuu kaa saxan yahay macnii hadduu qalad kaa qabtona inaad saxiisa ku raacdid aan mid aan ku wadadana sheego cid walba haddii la xiro cid walbay ka xiran magaalada wadooyinka ku yaala gooni uga xirtid cidna gooni uga furtid maaha magaalada wadooyinka ku yaala taliyaal anigoo kalkalaha mid kasta wado loo dhiibay iyo ciidankiisa haddii ay qaldan yihiin nimankii haddii aan qalad ka imaan oo dhankoodii dad baa gaadiid iyo shacab aan laga fasax matayada laga fasaxa magaalada wixii ka dhacayaa qaada asmaa qaada masa asiga la muuji doonaa taliyaal inaa macnii ardayda iskuulka aadaysa aa celisid kuwa jaamacadaha aadaya aa celisid arday iyo jaamacad tuuta wato kaliya inaad tuuta o dhan inaa iska aamintid maa tuutahan hudheeda laga soo gataa markaa ku kalifin dumarka o dhan inay tuuta soo xirtaan ilmihii iskuulka aadayan tuuta loo soo xir kuwa jaamacadda aadayan tuuta loo xiro ha ku kalifin marka waa shacabka inaad ilgaar ku fiirsiin waxaan dadkan ninkan asigaaba soo diyaarsan malaynaa naagtan war kaalay adiga niyahow horta mid in la qaatana way tahay dad dhibaataysan waxaan saa kordhin celinaya ilmihii may ku jiraan waa ku jiraan waan ku sheegaye ma naqdeen gabadhaadii aad noqotay halkaasay ka celisanaa celis markaa arkay inaan kuu kala celiyay anna waa celiyano
gurigaagii ku laabatay maxaa ugu diri weysa ku wadaynaysa maxaa ugu diray see u diraya war dadka hadda markii dambe okay waxay raacday markii dambe waxay raacday kuwa aan sii daayay markaad baabuurka daysay kuwa aan daayo raacay gurigaaga maantana markaad cilaysa naga habsaamine waxaan kuu sheegaa wadada hadday xiran tahay cid kastay ka xiran tahay taliya hadday furantaana cid kastay u furan tahay horta mid in la qaato way tahay midda aan qaadanayna waxay tahay in shacab dhibaataysan ama qof isbitaal loo wado xanuunsan ama arday waxbarasho socoto aan celino gaadiid hubaysan oo mukeefaad u shidan yahay oo nin wuxuu yahay aan la aqaanin wado aan deyn maanta dhan day waxaad igu leedahay mid iga dhageyso bahashaan amarka aniga waa iga sii sareeya ma ka sii sareeya adiga ani kayga diida adiga kaaga diid kan ka sareeyay ya baxare xabsi mugdi isku salaamayna ku sheegay mina ku sheegay dabluhu markuu alifla amarkiisa qaato alifluhu markuu laba alifla amarkiisa qaato laba alifluhu markuu saddex alifla amarkiisa qaato saddex alifluhu oo kormeeraha koowaad amarkiisa qaato jaranjaradu markay saas ahaato mid walba mid uu istaakul ku sameeyo runta imaanaysaa waa la israacayaa ku dhahay musuqmaasuquna wuu ka baxayaa kaliya loo baahan yahay saxno sidee hadda marka ani wax ku saxi karaa mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo madaha loogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay waxaa wax ku sii kartaa waa ka cabsan in aad adiga xilligaas aragtidaada gacanka iska xireenayaan iyo codkan u gelin waxaa wax ku sii kartaa waxay tahay in aad diiddo wax allaale iyo wixii musuqmaasuq luku leh musuqmaasuq waa inaan ka harnaa marka wadadood bar xirataa waa qayb musuqmaasuq ka mid a si fiican marka wixii musuqmaasuqa waliba dadka qaarna aan celinaa qaarna waa qayb musuqmaasuq ka mid a musuqmaasuq diid musuqmaasuq waan diidnay musuqmaasuq dooni musuqmaasuq diidnay bulshada kadashay haliyariya waaye tidayda dhuuxo waa dhaxalgal taladuye bulshadan kadashay haliyariya waaye tidayda dhuuxo waa dhaxalgal taladuye waa dhaxalgal taladuye عذر أبو أسيبتا أكما قلت إيفورا انت ردوغتا عذر أبو أسيبتا أكما قلت إيفورا الكودي حتى الباكو شقيسا qaybihii martida barnaamijka ayaan u gudbaynaa xeraalyaha qaranka Soomaaliyeed Axmed Cali Daahir ayaa barnaamijka marti noogu ah oo aan wax ka weydiin doonaa arrimaha musuqmaasuqa balse marka hore waxaan jeclaan lahaa in aan su'aalo kooban ka weydiiyo Sucaad Maxamuud Calas oo xubin ka ah hoggaanka dalada barakacayaasha العدالة سعاد مركز كوسو دو برامجك دواي ادي اديان السلام يا راديو برنامج waxaan leeyahay jiro jooga waligiin sida dadka isugu gudbiseen afkaaraha ay kala aaminsan yihiin ayaan leeyahay guul wacan سعاد هي soo dhawow marka qodobkan ku aadan dhibaatada musuqmaasuqu dhankiina uu saameeyay bal ka waran intee la eg tahay saameyntiisa wallahi marka aan ka hadlo dadka dhibanayaasha ama dadka maaragtay barakacayaasha ku nool magaalada daafeeda wuxuu u saameeyay si weyn ayuu u saameeyay musuqmaasuqu waxa waaye awal wuxuu ku ekaa gudaha
uu ku ekaa magaalada muqdisho laakiin markii uu usoo baxay xaggii iyo dadkii barakacayaasha ahay oo ayaga awalkii horeba naga soo saaray banaanka magaalada muqdisho haddana xeryihii ay ooteen oo meelihii banaanaayee dawladdu hadda amkaaniyaad aysan ku qabsanayn ayaa waxaa helay wax la yidhaahdo corruptionkii ka jiray gudaha waddanka haye dadku waxay hadal hayaan dawladdu maba u baahna dhulkaane maxaa keenay in nala barakiciyo oo haddana nagala sixiyo meeshii aan baasiga aan ka dhigayni annagoo aanan haysan amkaaniyaadkii noogu talagalay uusan soo dhaafin magaalada muqdisho ayay leeyihiin dawladdii annagoon dan ku qabin ayay waxay haddana hor istaagtay waxyaabihii aan maaragtay nolosheenna meeshii aan ku helayn oo ilaahay aan ku sugaynay ayay waxay hor istaageen dhul hadda aan aysan u baahnayn cidna aysan ku shaqaysanaynin dadkii lahaay ama maaragtay hay-adihii lahayna ay ahaynba kuwa dhaqan galay waa tahay Sucaad haddii aan qodob kusoo laabano dhanka cadaalad falidda marka mucaawanada la qaybinayo ama raashin gargaarka aad helaysiin xeryuhu qaab cadaalad ah mu helaan hore xeryuhu hadiiba ay soo gaaraan wixii ilaahay siiyey sida ay tahay ayay u qaybsadaan laakiin waxaaba maaragtay horta hore ay ka taagan tahay dhibaato in ay markii horeba ay soo gaaraan dadka maba soo gaaraanba amkaaniyaadkii loogu talagalay markii laga reebo waliba NGO-ya oo local aan ahayn oo ayagu soo qaata maaragtay mashaariic yar yar oo markaasay dadkii wixii ay u baahnaayeen amkaaniyaadkii ay u baahnaayeen aan xaqab tiri karin haye markaan usoo noqono dhanka cadaaladda wax qaybsiga dhibaato ayaa ka taagan sidee loo heli karaa ayaad leedahay marka cadaalad dhamaystiran oo musuqmaasuq looga gudbi karaa cadaaladdu horta hore xafiisyada kama soo baxdo marka hore markay xafiisyada cadaaladda ka soo baxdo ayay dadkaan iyagu ma aha dad maaragtay wixii xuquuqda aasaasiga ahay ay ku lahaayeen ma dawladda ama maaragtay hay-adaha kale ay ku lahaayeen maba ahaba qodobka waxaa la yidhi wuxuu xaq u leeyahay in uu noolaado qodob dhigaayo maaragtay dastuurka kumagaarka ahaa waxaa kale oo maaragtay kamid ah inay xuquuq ay leeyihiin bulshada waxaa kaloo kamid ah waxyaabihii qodobadii la qoray dastuurka la qoray waxaa kaloo kamid ah xuquuq inay u leeyihiin nabadgelyada ay heli lahaayeen qof ahaannimo mar waxay kaloo maaragtay xaq u leeyihiin xuquuqda aasaasiga iyo waajibaadka muwaadinka wax badan oo maaragtay cadaaladda xaggeeda oo ay heli lahaayeen qaxootiga oo xataa qaxootiga maaragtay laga hadlay oo la yidhi wuxuu leeyahay qofka qaxootiga in maaragtay iskiis inuu maaragtay u guuro maahine aan la rari karin hadiiba uu yahay qof qaxootiya oo ku nool maaragtay dalka gudihiisa yahayna muwaadin Soomaaliya uu qorayaa dastuurka federaalka Soomaaliya marka sidoo kale ayaa haddana waxaan arkaynaa dawladdii federaalka ahayd oo kumeel gaar inay soo qaadatay udubada iyo dhibkeed wax alla waxay haysatay ay isugu keentay dad masaakiina kuna tumatay xuquuqdoodii marka waxaa aad iyo aad maaragtay aan uga naxsanahay ilmo maaragtay meeshaas joogay anigoo udooda xuquuqda carruurta ah waxaan arkay oo indhaheedu arkeen guri mayd yaalla ee la leeyahay maydkiina ma naqaanee naga qaada lana garaacayo dadki kursi lagu kor garaacayo waa mahadsan tahay Sucaad waxaanu ka hadlaynay saameynta musuqmaasuqa aad ayaan kaaga mahad celinayaa waxay ahayd Sucaad Maxamuud Calas oo xubin ka tirsan hogaanka dalada barakacayaasha alcadaala isla markaana nagala qayb qaadanaysay barnaamijkan gaarka aynu kaga hadlayna dhibaatada musuqmaasuqa iyo sida loogu hortagi karo dhan walbaba ha ka yimaadee haddaba sidoo kale waxaan wax ka weydiinaynaa oo su-aalo dhowra oo arrimaha musuqmaasuqa iyo qaabka loogu hortagi karo iyo saameyntiisa ku aadan aynu hordhignay xeraalyaha guud ee qaranka Soomaaliyeed Axmed Cali Daahir Abukar Muxyidiin Xashara ayaana weydiinaya su-aalaha aad baad u mahadsantihiin adiga iyo idaacadda runtii arrimaha noocan aad sida wanaagsan oo aad isaga xil saartaan mar walbana aad mujtamaca ugu wacyigelisaan anagu shaqada la dagaalanka musuqmaasuqa ah waxa weeye maalintaan xilka bilaabay hadalkii ugu horreeyay oon sheegay buu ahaa
tallaabada ugu horeysana waxay ahayd inaan xafiiska xeeraalinta gudihiisa aan kala dagaalamo musuqmaasuqa ma dhihi karo waa gebigiisaba waa tirtirmay laakiin waxaan aaminsanahay in wax badan oo horumar laga sameeyey welina waxbaa ka jira laakiin waxaan rajaynaynaa isagana intaasna inaan horta xafiis ahaan aan ka sifeyno markaad adigu nadiif tahay oo xafiiskaagu nadiif yahay ayaa dad kale la xisaabtami kartaa ood ka dabageli kartaa musuqmaasuqu marka waa fara badan yahay ereyga musuqmaasuq marka la yiraahdo wax walba ayuu geli karaa aad buu u ballaaran yahay dacwooyin badan oo musuqmaasuq ah oo boqolaal kor u dhaafayana xafiisku haddaba gacanta ku hayaa oo uu la dhilgarayaa waxaan se u malaynayaa su-aashaadu inay uun ku wajahan tahay musuqmaasuqa mas-uuliyiinta sare ee qaranku ay geystaan maxaa laga qaban karaa runtii arrintaasi musuqmaasuqu waa dhowr qaybood qaybna waa sharciga lagu xadgudbaya qaybna waa maaliyadda hantida ummadda ayaa si khalada loogu tagrifalaya noocay doonta waa noqotee hay-ado badan buuna ka dhexeeya ka hortagiisu hadday noqoto hay-adihii dambi baarista hanti dhowrkii ilaalintii canshuurtii oo lala baxsanayo waa musuqmaasuq ninkii mas-uulka ahaayo canshuurta qaadayay oo bedelaya intii la rabay inta ka qaadaya qofkii waxna yani waa musuqmaasuqu marka waa wax fara badan oo runtii hay-ado badan u baahan in iska kaashadaan taraafikada ka mid noqonaysa oo baabuurkii in sidii loogu talagalay wadadii uu sharciga u maro shuruucdii si dhowro shilalkii la xaliyo baabuurkii la fiiriyo shirsu ku jiro waxaasoo dhan ciddii ka hortagta waxaasoo dhan musuqmaasuq bay noqonaysaa iyadana marka hay-ad kasta ayuu saameynayaa ma aha wax hal hay-ad keliya ay wax ka qaban karto marka waxaan runtii wadnaa barnaamij ah dhammaan hay-adaha involvedka ah oo arrintaas inay ka qayb qaataan loo baahan yahay inay on board noqdaan oo kulligood isla qaataan la dagaalanka musuqmaasuqa markaas ayaa sidii la rabay oo dhab ah xafiis walba oo musuqmaasuqii lagula dagaalami karaa laakiin xafiiska xeeraalinta keligiis oo ah runtii xafiis tashiilaadkiisa ama resourceka uu haystana ay aad u yar tahay dhinac dad hadday noqoto dhinac shaqaale hadday noqoto dhinac mas-uuliyiin hadday noqoto dhinac dhaqaale hadday noqoto dhinac maaragtay logistic hadday noqoto wax walbaaba ay aad u adag yihiin sida expectationka ay dadku qabaan ama dadweynuhu ay ka filayaan oo high expectationka ah ma uu gaari karo muddo kooban laakiin waan bilownay dacwooyin haddaba diyaar ah oo mas-uuliyiin sarsare ku wajahan oo procedurally qaanuuniyan procedure ka duwan sida qofka caadiga markuu dembiga galo procedure ka duwan bay u baahan tahay in la maro procedurekaas baana ku guda jirnaa waana rajaynaynaa qaarna waa la keenayba waad arkay qaar waa xirxiran yihiin qaar waa maxkamad baa la keenayaa qaar waa la keenay in badan oo ka midana weli dacwadoodii ma aysan dhaqaaqin before iyadoo la rabo in la waafajiyo muxuu ahaa procedurkii qaanuuniga marka madaxweynuhuna wuu ku baaqay sanadkan inuu noqdo sanadkii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana ka rabnaa idinkana hay-adaad tihiin warbaahintii ummadda runtii door weyn baa idinka furan oo hay-adaha hadda aan ka hadlayay idinka ayaa ka door badan waayo haddaad wax noo efisaan xataa waa dabageli karnaa haddaad wacyigelisaan dadka oo waxa ka dhalanaya iyo cawaaqibka ka dhalanaya iyo xumaanta ay leedahay iyo haddii la wanaajiyo wanaagga ka imaanaya iyo horumarka imaanaya dadka mar walba aad ku baraarujisaan barnaamijyo ka qabataanna way caawinaysaa idinkana doorkiinu wuxuu la mid yahay doorarka ama uu ka weyn yahayba hay-adaha ku shaqada leh doorka warbaahinta ka muhiimsan inaad idinkuna aad ka qayb qaadataan qolyahan hadda xirxiran oo kiiska lagu soo oogay oo aa leedahay maxkamad ayaa la soo saaraya oo saraakiishii ay ka mid yihiin goormee kuwaas kiiskooda la dedejinaya oo maxkamadda la keenaya waa kulley dee saraakiisha hadda xiran oo wax looga eedeynayo ama qaraxii ka dhacay SYL inay siyaabo kala duwan oo qofba nooc gaar ah ay ugu lug yeesheen baaristaankiisii baa socda weli xarigaana waa xarig hordhaca waxaa laga yaabaa qaarkood inaan lagu waayo dembi oo aanay maxkamad la gaarsiinin oo ka hor la soo daayo qaarkood maxkamadda horteeda in dembigii lagu waayo waa suurtagal qaarkoodna in dembi lagu helo waa suurtagal marka annaga xafiis ahaan waxaan rabnaa in intii sharcigu noo ogolaa oo qaanuunku noo ogolaa inaan ku dedejino haddaanba ka hormarin karinona aan kasii hormarino hadday daahdana muddadii sharcigu noogu talagalay inayna nala dhaafin
maxkamadda awood u leh baana la geyn doonaa mana aha baaris dhamaatay oo indefinitive ah oo xataa darajo eed ah yani weli aad uma sii cusla oo aad uma weyn ilaa conclusionka la gaaro ama gabagabada gunaanadka dacwadda la gaaro baaristanka la gaarana wax weyn kama dhihi karno wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moog xeraaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir Abukar Muxidiin Xashara ayuu u waramayay wuxuuna ka hadlayay sida qudhiisa dhibaatada musuqmaasuqa iyo sida looga hortagi karo barnaamijku waa barnaamijkii gaarka oo kaga hadlaynay dhibaatada musuqmaasuqa uu leeyahay iyo sida markaasi looga hortagi karo oo bulshadu ay ugu baraarugi karto waxaana barnaamijka gacan geysanaya hadda marqaati idaacadda banaadir ee magaalada Muqdisho aad ka dhageysanayseen dhageystayaasha dhanka fikirka arintan musuqmaasuqa fikir ka dhiibanay waxay naga soo wici karaan line 644 haddii mobile ay tahay iyo haddii ay landline tahayba lixdaasi lambar oo waxba aan laga hormarin 644 ayay naga soo wici karaan si fikirkooda ay u dhiibtaan qaadkuna way furan yihiin wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco ayuu musuq maasuq yahay qaybaha dhageystayaasha iyo dooda ayaan gelayaa dhageystayaasha raadiyaha iska fogeeyaan ama ha iska damiyaan si aan isku maqalno dhageystaha ugu horeeya halow galab wanaagsan galab wanaagsan walaal magacaaga iyo deegaanka naga soo wacayso iyo qaabka barnaamijka aad ula socotay intaba walaal magacaygu waa maxamed cali maxamed barnaamijka la socotay bal fikirkaaga ku aadan musuq maasuqa musuqmaasuqaniyo musuq maasuqa waxana haleeyay oo macnaha hoos noo dhigin fahamteen haye marka waxa loo gudbi karaa waa inaan diinta ilaahay aan raacno oo markii oo sugnaano Soomaalida sideedana waxay ahayd dadkii oo meel fadhiisto oo macnaha oo wada hadlo laakiin hadda waxa bilaawday in walba inuu jeefkiisu wax gasto amba oo barnaamij la isku diro waxba oo la qaban meelaha ugu badan ee musuqmaasuqu uu saameeyay waanu ka soo hadalna marka adiga qudhaada ma baratay ama ma isku dayday inaad wax ka ogaato sharciyada dastuurka ee sheegaya ama qaabka looga hortagi karo musuqmaasuq ku aadan wallahi musuqmaasuq horta sida aniga shacabka sida farkiligeed fool ugu dhaqdo qofka bini'aadamka wuxuu fiican yahay in la su'aaliyo oo mashruuc la sameeyo oo qof walba oo Soomaali xaq buu u leeyahay dhulka askale waa maasanta waan kaga mahad celinaya fikirkaaga wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo taleefanka dhegeystayaashu ay naga soo wici karaan waa 644 halow galab wanaagsan walaal magacaaga iyo deegaankaad naga soo wacayso waa deeq maxamuud sagaal jawhar deeqa jawhar see lagu yahay aad loo fiican haye barnaamijka la socotay bal soo gudub fikirkaaga musuq maasuq wax fiican ma ana iska dhaafaan diilaa bulshada saameynta bulshada uu ku yeelan karo iyo qaabka looga hortagi karo maxaad is leedahay in midooda looga hortagi karaan diilaa laafooya ma jirtaa marka inaad isku dayday barashada arrimaha musuq maasuqa looga hortagi karo iyo dastuurka waxa uu ka qabo kolay in bulshada ay iska dhaadhicis in musuq maasuq fiicnaan iyo waxyaabo fara badan baa looga hortagi karaa waasay haye waa maasantaa waan kaaga mahad celinaya fikirkaaga iyo sida wanaagsan ee barnaamijka aad ugu soo qayb gashay wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee
qadka xiga dhegeystaha ku jira halow galab wanaagsan waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay sidaa daraaddeed waxaan u gudbayaa dhegeystaha xiga ee barnaamijka si uu nagala qayb qaato halow asalaamu calaykum waan ku maqlaa raadiya iska fogey ama iska dami si aan ku maqalno walaal soo dhawow halow waan ku maqlaa waan ku maqlaa asalaamu calaykum magacaaga calaykum asalaam magacayga waa qadiijo cawaalo kasoo waa xaafadda howlwadaag haye waxaan kuu sheegaa in musuq maasuqan dowladda 21 sano wadanka ka dhisneed ay dhihi jirtay hoola fududay shaqaalaha dowladda hala siiyo kan madaxweynaha naftikiisa maxamed sheebaro u dhihi jiray marka kitaabka islaamka la qaato kitaabka islaamka looga bixi karaa asalaamu calaykum waa mahadsantaha marka haddii arrinta musuq maasuqa shacabku sidee uga hortegi karaan asilada shacabka waxa waaye danaa ku qasbaysaa qofkiina uu xasuubsado rabo haddii dhaanaa kuu fududeyna waxaas dadka waa dad daciif oo diinta waxba ka aqoonin haye markaas waa inay kale ay diidaan waa mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa fikirkaaga iyo sida habooneed barnaamijku soo qayb gashay wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal dhegeystayaasha ayaan weli jeclahay inaan fursad sii siiyo si ay barnaamijka uga sii qayb qaataan qaybaha dambe ee fikirka ku aadan ka hortagga musuq maasuqa waxaana dhegeystayaasha qaarkood aanu ka codsanaynaa marka aynu telefoon ka qabanay inay raadiya iska fogeeyaan halow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal raadiya iska fogeeya amba iska bakti soo dhowow si aan isku maqalno walaal macaan waa dhawaay adigan dhamaantiin shaqaalaha waa niyo salaamaya musuq maasuq orantii hor shacabka wada inay u furantaa ma u maleynayo tan kale wax walba dowladda ka sugeynaa marka sidee shacabku qudhooda uga dhiidhin karaan inay musuq maasuq didaan ilaan musuq maasuq dowladda kaliya kama socdee shacabkii is musuq maasuqo gurigu ka jira musuq maasuqa la leeyahay wallahi qof walba haddii oo kitaabka ilaahay ku dhaqmo musuq maasuq waa dhamaanaya misanahay kulita waxaan rajeynayaa inay qof walba kitaabka ilaahay ku dhaqmaan waa mahadsantaha waan kaaga mahad celinaya fikirkaaga wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuhu haydin dhacee dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa halow galab wanaagsan wanaagsan waa wara walaal magacaaga marka hore cabdiweli maxamed daahir oo jooga waa beri cabdiweli waa beri soo dhowow barnaamijka dada socotay hore u soo gudub walaal si fiican baa ula socday mas-uuliyiintii aa soo bandhigteen aad baan runtii uga mahad celinayaa runtii waa wax u baahan in laga hadlo oo maaragtay bulshada laga wacyigeliyo waxaana arrintaas yani door weyn bay ku leeyihiin runtii bahda idaacadda aad baan isugu mahad celinaya runtii sidee marka bulshada qudheeda ay ugu baraarugi kartaa oo ay uga fogaan kartaa musuq maasuqa inay fududeeyaan ayaga qudhooda ay ogolaadaan runtii bulshada waxay u baahan tahay in laga baraarujiyo culumada door weyn baa uga furan runtii inay dadka u sheegto shacabka maaragtay u sheegto in musuq maasuqa iyo khiyaanada wixii sooga la khiyaano inay xun tahay culumada iyo dhalinyarada iyo maaragtay runtii idaacadaha dhammaantood door weyn baa uga furan bayna aad baan waa tahay waa mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa sida habboon eed barnaamijka igala soo qayb gashay wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida looga hortegi karo waxaa barnaamijka mahad gaara u celinaya oo igala qayb galay xeeraliyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir oo wax weyn markaa musuq maasuqa nooga ifiyey weliba sidoo kale sucaad maxamuud calas oo xubin ka tirsan hogaanka dalada barakacayaasha alcadaala labadaba waa mahadsantiin ayaan leeyahay malaayiin jeer waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii qaadka telefoonada dhanka fikirka ka qayb qaatay iyo farsamada uu qadarna u joogay waxaa barnaamijka la socodsiinaya anigoo abdicays cabdullaahi maxamed riil abukar muxudiin xashir ayaa igala qayb galay waa baadii barnaamijka oo isku duban oo idin leh nabadgelyo si kale loo maamulo bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahura